lixdan sano unbaan walaalaheen dooranaynay maxamed subeer qoyska la dhaho annaga ma khilaafsanin waa walaalaheen waxaan rabnaa safartan in ay ma aragtay il gooni ay nagu fiiriyaan oo ma aragtay ilaahay ka baqaan maxamed subeer intuu dhan yahay ummad yar oo la dhaho guddi ayay u dhiibteen mas'uuliyad guddiga inay ilaahay ka baqaan ninkii maanta nool birri ma noolo hadday gar ay xagalaan oo cali nasr safartan ka leexdaan haddii ayagii ilaahayooda rajaynayna guul iyo wanaag aan ka rajaynayna maxamed subeer inuu embiga ushiisa uu nagu soo wareejiyo annagoo reer canasir eh halka aan ka geedaqaano walaalaheen maaragtay maxamed subeer aan haddana sidoo walaalihii hore ay sheegeen aan ka codsanayno in ay taho xibintan maanta taagan xibin canasir uu leeyahay haddii la wada dhashay dhalasho haddaa jirto waay haddii dhalasho ay jirto maxaa yeelay 60 sano ayay ma aragtay Kenya ay dhisan tahay 60 sano ay Kenya dhisan tahay 60 sano 69kii laga soo bilaabo ilaa yoonkan aan joogno ee 2022 reer canasir wuxuu ka ooman yahay baarlamaanka Kenya laga xukumay ayuu ka ooman yahay laangaabna kama dhalanino maxamed subeer uu ka dhashay gaar ahaan guud ahaan ogaadeen uu ka dhashay marka sidaa too waxaan codsigaygu u yahay maadaama fursadan la siiyay in ma aragtay ilaahay aan amarkan weydiisanayno awalan thumma ka bacdi hadana walaaleen maxamed subeer aan u cadeynayno haddii aan qoyskii reer canasir ee wadanka deganaa ee lahaa in aan xibintan cid kale ayna jirin maxamed subeer qoys kale oo ka mudan uusan jirin beesha maxamed subeerna inaan ma aragtay u tagno oo ma aragtay si cadaalad ay inoogu falaan oo nala shaqeeyaan anaga sidaad ogtihiin beesha anaga aan ka soo jeedno in badan baan ma aragtay kursigan u loltamnay ilaahayna nama waafajinin waxaan rajaynayaa in ma aragtay safartan tokadan in aan ku guuleysan ayaan rajaynayaa insha Allah biidhnillaahi alkariim maxamed subeerna waan u tagaynaa insha Allah wixii xaqayna ah ma aragtay si cadaalad in ay inoo falaan